السلام عليكم ورحمة الله. maanta waxaan ka fargaran doonaa networking basicska. Network basicska waxaan uga hadli doonaa afar module: what is networking, types of networking, networking topologies, iyo advantage of networks hadduu alla idmo. Aan ku bilaabano what is networking. Networking is the practice of connecting multiple computer devices in order to share the resource, exchange files, and allows electronic communication. Networking waa in la isku xiraa laba device wax ka badan, laba computer, laba mobile, laba shay wax ka badan la isku xiraa. Kuwaas waxaa loo yaqaanaa networking ama network. Okay. The computer network can be linked through a medium such as computer network waxaa loo adeegsadaa medium waxaa la yidhahdaa dhexdhexaad mid ah dhexdhexeeya, ama wuxuu noqon karaa wireless oo xariga, ama wuxuu noqon karaa wired oo xariga, ama wuxuu noqon karaa wireless oo xarig la-aan ah. Wireless waxaa ka mid ah wiredka waxaa ka mid ah cableska, telephone lineska, radio wirelesskan waxaa ka mid ah radio waves, satelliteska oo infrared. Types of networks waxaa ka mid ah LAN local area network. waxaa loo isticmaalaa in la isku xiro deviceyo isla yaalo meelo isu dhow sida dhismayaalka, guryaha iyo iskuulada wixii la mid ah. Sidoo kale wide area network waa maxay? waxaa loo adeegsadaa in la isugu xiro deviceyo sida large geographical meelo aad u kala fog oo kale, sida laba wadan oo kale. markii networkiisa ama laba device oo taalo oo kale la isku xiro waxaa loo yaqaanaa wide ama wide area network loo yaqaanaa WAN. Metropolitan area network waa network design iyadana haddii magaalada laba dhismo oo ku yaalo la isku xiro oo xoogoo kala fog waxaa loo yaqaanaa metropolitan area network ama MAN. SAN waa storage area network. iyada waxaa loo adeegsadaa in networkii dhamaa loo sameeyo hal meel oo storage, halkaas oo deviceada dhammaan ay ka helaan datadii waxna ay ku share garayaan. kuwan marka waa types of networks, way badan yihiin. marka LAN, WAN, MAN iyo SAN. marka waa qaar kale waxaa jira area networks kale fara badan oo wuxuu ka mid PAN oo kale, personal area network oo kale jiri karo. marka hadda laakiin typeska ugu muhiimsan oo commonka ah waa afartan. LANka waxaan dhahnay waa meel isu dhow sida hal qolo oo kale, markii fiilooyinkooda ama iskugu dhamaystirtid waxaa loo yaqaanaa LAN. markii adduun weynaha oo kale ama laba wadan oo kale isugu xirta waxaa loo yaqaanaa WAN. had sawirka aan fiirino, LANtu waa qayb ugu hooseeyo, MAN ku xigo, WAN ku xigo. marka sawirkan wuxuu sharaxayaa haddii hal dhismo computer yaala la isku xiro network laga sameeyo waa LAN, haddii laba dhismo ay noqdaan waa MAN, haddii laba dhismo ay ka bataan wadan to wadan Addis Ababa to Muqdisho kale haddii network la sameeyo waxaa loo yaqaanaa iyadan waxaa loo yaqaanaa WAN. marka waa iska xitaanadii waxaas waa iska boofsiinay. marka LAN, MAN iyo WAN waa networks ku muhiimsan. network topologies waa qaab dhismeedka LANka. LAN ama computer yaalo meel qol ah ama xafiis ah, markii aad isku xiraysid ama meel lab ha ahaado ama ha ahaado meel campus ah, waxaa loo xiraa qaababkan. network topology waa qaab dhismeedka networkaaga. wuxuu noqon karaa bus topology. bus topology waa maxay? wuxuu haystaa waxa la yiraahdo utilized common backbone, hal fiilo oo laf dhabar ah oo dhex marayso dhammaan computerada dhexdooda maraysa, computerada ay maraysa gadaashooda. computer walbana waxay u reebaysaa fiilo uu kala xiriiro. marka dhammaan computeradaas dhan way isku xiran. ciladiisa ugu koowaad waxay tahay haddii hal fiilo dhexda ay ka go'do networkaas, the whole network will be down. dhulka ringi topology waa in deviceada dhammaan kuwa neighborka ah oo isku dhow la isku xiraa. datada marka waxay maraysaa qaab ringi ah, qaab sida faranti oo kale ay u soconaysaa. marka haddii hal meel oo kamid ah laba computer kamid ah xiriirkooda uu halaabo, dhammaan networka wuxuu noqon doonaa failure ama wuxuu noqon doonaa mid networka down ah oo hoos u dhaco. star topology waa midka ugu badan ee commonka ay la adeegsado. waxa dhexbartanka yaalo waa hub oo ka mid ah network deviceska. dhammaan computerada waxay la xiriiraan habkaas. haddii habkaasi uu dhaco networkaaga dhammaan way dhacayaan, laakiin haddii habkaas uu shaqeeyo networkaaga uu shaqeynaa. waa nooca ugu badan ee hadda modernka taa la isticmaalo waa star topology. star topology. tree topology waa bus network. bus network ayaa waxaa laga sii sameeyay star topology. hadda halkan waxaa noo yaalo fiilo dheer
waxaa kasii xiriirsan waxa loo yaqaano hubs ayaa ka xiriirsan. Marka waa tree topology ayaa loo yaqaana. Waa in bus topology iyo star topology-ga hal meel ama group ahaan laga dhigo. Network noocaas markii loo sameeyo waxaa loo yaqaanaa tree topology ama topology-gii sida xariga kale ahaa. mesh topology waa advanced topology oo ah in dhammaan kombiyuutaradii ay wada xiriiraan. Advantagekiisa waxaa ka mid ah in khasaaro badan oo lacageed ama expensive ah waxaana fiilaa inay ku galaan isagana, laakiin waa midka ugu fiican markii loo fiiriyo dhankaas. Advantageska waxaa ka mid ah oo networka communicationska, xiriirada lagu sameeyo, data sharing la sameeyo, data la wadaago, internet service in la helo, video conference in la helo, broadcast cable in la helo, remote flashable reliable data transmission oo ah data diritaanka waxaas in la helo. Marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen. Thank you guys. Assalamu alaikum.